halkan aad u jeedaan waa xarunta Sheekh Nuur Ortable maalmihii dambe waxa ka soconayay quraan looga hortagay cudurka coronavirus oo bulshada si aad u saameeyay caalamka maanta ayaa lagu wadaa in la soo qatimo bal maxaa ka socda xarunta gudaheeda balna keena إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله علماء الدين Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ka soo qayb galay kulan quraan akhris ah oo muddo maalmaha ka soconayay xarunta Sheekh Nuur Ortable ee magaalada Muqdisho quraankan ayaa loogu talagalay in cudurka halista ee coronavirus oo ilaah ka najiyay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan ee bulshada caalamka islaamka quraankan ayaa ugu dambeyn maanta la soo gabagabeeyay waxaana halkaasi ducooyin fara badan ka jeediyay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ugu horreyn ayaa kulankan quraan akhriska waxa sharaxay Dr. Maxamed Axmed aw Cali Faaraxey oo ah qabanqaabiyaha quraan akhriskan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت أين جوجنو حرمتي شيخ نور أورتبلة شيخ نور محمد عم بس دتك سوي قناة شيخ نور أورتبلة وما أنت اللي سوي مت بريهم قرآن أخرس كالسعودي أو لو دعونا يدلك عذر هذا دلك صاق عليه عذر ككرونسك إن إلهي ومد الصوماليات iyo islaamka ilaahay ka qaado caalamkan dhan ilaahay ka qaado ayaa quraankaas maanta meesha lagu soo qatimaay culimada maanta oo meeshan isugu timid oo bariyahan isugu imaaneysay waxa lagu akhriyay kun yaasiin kun faatixo iyo 10 kun oo saliga nabiga ah marka waxaan meeshaas culimada isugu yimid maanta oo ka kala imaaday wadanka daafihiisa oo ka kala yimid ayaa maanta qatinka ayaa meeshan lagu soo qatimay waxaana noo ducoonayo sidoo kale goobta quraan akhriska ayaa duco qiiro badan waxa ka jeediyay Sheekh Umar Sheekh Khaliif Garweyne muslimiinta ka qaado Soomaaliya ma soo gaaro bartiis Ilaahay nooga xanibo meeshiisa Ilaahay nooga xamido dawladda Ilaahay quwad siiyo Ilaahay la jiro meel kasto ay joogaan Ilaahay la jiro ay ku baahdo wadanka فضحي دكي أنوارت لافرة لعبت لافرة خير الدن لافرة ساسا إلهي ويدسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاعا وبالشين شفاعا وبالشين شفاعا وبالساد صدقا وبالضاء ضياعا وبالطاء طراوة وبالعين علما وبالغين غنا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنور نورا وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى سهل لنا بما نريد ugu dambeyn ayaa kulanka quraan akhriska waxa soo gabagabeeyay Sheekh Axmed Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Nuur Ortable munaasabadan quraan akhrinta khatimka quraanka aan akhrinay kun yaasiin iyo kun faatixo iyo 10 kun oo saliya oo ujeedkoodu ahaa in coronavirus loogu duceeyo inuu soo dalkeena soo galin caalamkana ilaahay uu ka zuuliyo si caalamku uu isugu furnaado caalamku isku furaya dadka ka macaashaya Soomaalida koow ah islaamka koow ah ilaahay idinkiisa marka caalamkana mas'uul waxa ka ah dadka islaamka iyo cidii marka islaam ah oo caalamka naxaysa إلهي نكس عالم كان دقنا إلهي نقوم في النية أصلا إلهي رب العالمين إلهي نقوم في النية نقوم ندلنا نقوم عذابه إلهي نكس كورونا فيروس إنه أنت قرآن كانوا آخرين ني فكعدك أو كفرانه إلهي ونقص زوليو دل كان وسوقلين دل كان وسوقارين سومالي ميل البجوكان إلهي كان بدي عالم كان حلكي صلى هلان إلهي مرتئوا هنا بريء كبريني إن داودي كورونا فيروس عالم كوكو أتكات تمرتي قدرتي إلهي وأرجناه نحريست إلهي أنا أرجنا إرجوا هين إنه عالم كوردن إلهي داودي سسيه
si xanuunkaanu u zuulo khatarta bini'aadanka ku noqday ducfigii bini'aadankana bannaanka keenay naxariista ilaahayna mid loo baahan yahay oo gaal iyo muslim la isku raacay ay noqotay annagana guulahan gaarin waxaa ka mid ah cudurku habana soo galay in dadkii ka shakisanaa naxariista ilaahay ma loo wada baahan yahay mise looma baahna ay dhab u wada arkeen in loo baahan yahay sideenoo kala noqdeen marka ilaahu naxariistaada waa loo baahday gaal iyo muslim haddaan nahay waa kuu baahannahay naxariistaada nagu sii qur-aankaan akhrinay khatimkiisa waxaan kaloo rabnaa qur-aanka inaan ugu duceyno ujeedkeennu ahaa dalkeenna iyo dowladdeena ilaahay inuu kor ka yeelo oo quweeyo ilaahay idankiis dariiqadana ilaahay noo nooleeyo xaruntan aan ku suganahay waa xarunta Sheekh Nuur waxaana lagu soo gabagabeeyay khidmooyin maalmihii dambe ka soconayeen quraan akhris ahaa ka oo looga hortagayay cudurka harista ee coronavirus inuu Allah ka najiyo muslimiinta meel walba joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed waxaana si guud loogu duceeyay bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaan Cabdiraxmaan Kambala Som News TV Muqdisho